gudoomiyaha gobolka saaxil iyo isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka ayaa maanta ka qayb galay munaasabad tababar loogu furay 23 xubnood oo ka tirsan daryeelayaasha caafimaadka xanaanada xoolaha oo ka kala socday deegaanada Abdaal, Buluxaar iyo Goodaweyn. tababarkan oo socon doona muddo 12 cisho ayaa waxa soo qaban qaabisay hay'adda Fati Aid ayna maalgelinayso hay'adda GIZ ayaa saaka lagu qabtay xarunta howlka hay'adda Fati Aid. waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka saaxil isagoo isuduwu ka warbixiyay ujeedada tababarkan iyo waxa ay ku rajayn yihiin inay ka wasaarad ahaan ku soo kordhiyaan tayada xoolaha. tababarkan wuxuu daba socdaa tababarka hore ee loo qabtay degmooyinka bariga Laasciidle ee Xagal iyo maxamed Sheekh oo midkiiba loo tababaray inta in leeg waxa weeyaan ujeedada ka dambaysa waxa weeyaan in la baahiyo xirfadda caafimaadka xoolaha marka waxa loogu talagalay inay noqdaan dadkani dad xirfadda xoolaha guud ahaan wax laga baro waxaan ku rajaynahay waxa halkan inoogu diyaara laba nin oo way arag aad u ah oo maxaan ahay bahda xanaanada xoolaha ah oo soo jira ah muddo badan ka soo shaqeynayay Maxamuud Jibriil iyo ninka Maxamed Ismaaciil Burco labadaas tababarada bixin doona xagga dhaqaalaha waxa ka caawiyay hay'adda GIZ oo maxaan raahday kharashka bixinaysa waxaana tababarka fulinaysa oo way aragnimo aad u fara badan u leeyahay hay'adda Fati Aid oo maxaan raahday muddo aad u badan tababarada noocan oo kale fulinaysa waxaasna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka saaxil Ali Maxamed Cilmi isagoo 23 xubnood oo tababarkan qaadanaya kula dardaarmay inay waxay halkan ka faa'iidaan ay bulshadooda u gudbiyaan. waxa la doonayaa oo maanta halkan la suukin keenay adiga kaliya wax lagu barin inaad bulshadii aad ka timi aad waxa aad baratay dib ugu celisaa la doonaya haddii imika qalabka lagu siiyay iyo tababarka lagu siiyay gurigaaga uu ku ekaado dee qoysun baa la tababaray qoysun baa loo tababaray ama reerkaagu baa lagu tababaray laakiin waxa la doonayaa haddii eriyada ay wax ka dhacaan oo ay xoolaha ama xanuun ku yimaado ama dawadiisu haddii badinsa loo qaadanayo qofkii ka dhaadhiciyo ama sida neefkii loo xanaaneeyo oo ah Soomaalida way naqaanaa xoolaha way naqaanaa laakiin waxa weeye waxa lagu hogaaminayaa inaad habkii dhakhtarnimo iyo systemkii loo qabanayay neef wala dunya ka waxa la doonayaa inay ku dardaarayaan marka koowaad ina waxa aad barateen bulshada u gudbisaan oo aan idinka ku koobnaan 12 ka cisho shakhsiyadaada laguma keenin waxa lagu keenay degmada aad ka socoto 7 tababare. tababarkan oo daba socda tababar hore oo dhawaan loo qabtay deegaanada bariga gobolka saaxil waxaana wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka saaxil ay mar walba u heelan tahay sidii ay u soo saari lahayd dad aqoon u leh xanuunada ku dhaca xoolaha. Khalid Xasan Nuur, telefishinka caalamiga ee Royal Berbera.